suuqan magaciisa waxaa la yiraahdaa suuqa dumarka carmalka ah. مرأة موريتانيا haweenka Mauritania marka la furo waa loo tartamaa aadna waa loo jecel yahay. suuqan Mauritania waxaa la yiraahdaa suuqa haweenka la furay carmalka ah. والله سوق المطلقات tani waa suuqa haweenka carmalka ah. boqolleyda furniinka Mauritania waa mid aad u sarreeya, laakiin furniinka dalkani waa loo dabaaldegaaba. dumarka la soo furo Mauritania dhexdeeda way ka duwan yihiin dhammaan adduunweynaha kale. رجل موريتاني برغب في waxaa jira rag badan oo ka doorbiday inay guursadaan haweenka la soo furay kuwa aan weli guursan. haweenka carmalka ah ee Mauritania ayaaba ka jaanis iyo fursad badan guurka marka ay timaado kuwa aan guur hore soo marin. laakiin maxay tahay sababtu? anaa kula wadaagaya. suuqan dhani iyaga ayuu gaar u yahay. haweeney kasta oo Mauritaniana marka la soo furo halkan waxay ku iibisaa dhammaan alaabtii gurigeeda. qaar ka mid ah haweenkaasi ayaaba ganacsatada isku bedela. qodob muhiim aan xuso, haweenka Mauritania marka la furo ayaaba laga jecel yahay kuwa aan la guursan. أثاث المنزل تبيعه هنا waxaad halkan ku iibisaa dhammaan alaabta guryaha. فرش وأغراض والشنت. هي انتم حزن furniinku adiga xaalad xun ayuu kula yahay, balse annaga farxad ayuu noo yahay. لان جولة تعدرحت halkan marka haweeney la soo furo xaflad baaba loo dhigaa. احتفال المطلقات. gabadha la furay ayaa xaflad loo qabanayaa miya? أنا مطلقة وهي مطلقة aniga iyo iyadaba waa la furay, iyo haween badan oo kale. furniinka marka laga hadlayo muslimiin ahaan waa wax caadi ah. guurku siduu nolol u yahay ayuu furniinkuna nolol u yahay. markaa kama xumaataa furniinka ما نحزنه ما نحزنه keliya waa nolol iyo xiriir soo idlaaday. sidaasaan u aragnaa. marka haweeney la furo waxay bilowdaa ganacsi u gaara, wax iibin iyo wax iibsi. nolosheedana way horumarisaa. markaasi furniinku mushkilad maaha. ceeb uma aragtaan? يجينا أبدا منه. أبدا uma aragno. keliya waa nolol soo dhammaatay. لا حرج في الطلاق هذه عادات dhaqankiina ayaa sidaa dhigaya soo maaha. haa dabcan annaga waa wax noo caadi ah. halkan furniinka waxaaba nagu yeedhnaa isbeddel iyo jiha nololeed oo cusub. kadib qof kale ayaad is helaysaan, mar kalena waad guursanaysaa. marka gabadh la furo waxay heshaa dalabyo badan oo guura, kadib way iska guursataa. waxaa dhici karta in guurkaas cusubi ay ku badhaadho oo ay si wada joogaan, iyo sidoo kale inay kala tagaan. المرأة الموريتانية maxay tahay sababta gabadha carmalka ah uu dalabkeedu u badan yahay? ازداد جمالها sababtu waxay tahay inay gabadhaasi ka qurux badan tahay kana khibrad badan tahay gabadha kale. markaa qofkii ka tegay mid ka wanaagsan oo qadariya ayayba heshaa. laakiin ma laga yaabaa inay tani dhiirigeliso furniinka? haa, way dhacdaa. laakiin gabadh kasta sayigeeda cusub ayaa qaadaya mas-uuliyaddeeda iyo weliba tacaarurteeda. المرأة الموريتانية قوية. haweenka Mauritania miyay ka karti badan yihiin haweenka kale? aad iyo aad. المرأة الموريتانية قوية حتى dalabkan badan waxay ku sababeynayaan in dumarkani khibrad ahaan iyo garasho ahaanba ay ku fiican yihiin maamulka guriga. المؤخر مو عندنا halkan lagama yaqaano in lacagta meherka dib loo dhigo. sidaas oo ay tahay haddana gabadhu waxay leedahay ama la siiyaa wax kaste oo gurigeeda yaala. alaabtan waa alaabtii guriga. ninkaagii baad ka soo qaadatay miya? وقد أخذتيها من زوجك أخذتها من بيت haa, dhammaan alaabtii gurigayga ayaan soo qaatay. halkan aanu ku iibinaa. haweenka Mauritania waxay door weyn ku leeyihiin ama ka yihiin bulshada, waxayna ka soo